ciidamada Ruushka ayaa maanta waxa ay qaadeen weeraradii ugu cuslaa 7 cisho ee dagaalka uu soconayo waxaana ay ku qaadeen magaalooyin waaweyn oo ka mid ah wadanka Ukraine iyagoo isku dayaya inay go'doomiyaan ciidamada Ukraine sidoo kalena gacanta ku dhigaan aagag badan madaxa golaha ammaanka qaranka Ukraine waxa uu sheegay in Kiev ay fashilisay isku day lagu doonayo in lagu qaarijiyo madaxweyne Zelensky meeshana ay ka saareen koox calooshood u shaqaystayaal ah oo loo diray inay dilaan madaxweynaha halka madaxweynaha Ukraine uu ku dhawaaqay isna in la dilay ilaa iyo 6,000 oo askari oo Ruush ah 6dii maalmood ee la soo dhaafay oo dagaalka uu soconayay wakaalada wararka ee Ukraine waxa ay sheegtay in ciidamada cirka ee Ukraine ay ku guuleysteen inay burburiyaan kolonyo ciidan oo ay wateen dagaalyahanada calooshood u shaqaystayaasha ah oo isku dayay inay u soo dhaqaaqaan dhanka caasimadda waxa intaasi ku dartay in cutubkan uu isku dayay in uu ka soo baxo dhanka bari ee magaalada Berdyansk ee waqooyi galbeed ee caasimadda Kiev weeraradii ugu dambeeyayna bayaan ay soo saartay wasaaradda difaaca Ukraine waxaa lagu sheegay in taliyihii guutada weerarka cirka ee 11aad ee ciidamada Ruushka lagu dilay howlgallada militari ee gobolka Seversk war-saxaafadeedka waxaa sidoo kale lagu sheegay in taliyaha guud ee guutada 36aad ee ciidamada Ruushka uu ku dhaawacmay howlgallo ay ciidamada ka sameeyeen isla deegaankaas xawliga iskoorimaadiyada militari ee u dhaxeeya ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine ayaa sii xoogaystay maanta iyadoo ciidamada Ruushkana ay sii wadaan howlgallo militari oo ay ka wadaan wadanka Ukraine waxaana jirta cabsi caalami ah iyo sidoo kale inay ku wajahan yihiin ciidamada gabi ahaanba inay gacanta ku dhigaan magaalada caasimadda ee Ukraine Kiev ciidamada Ruushka ayaa gurmad ciidan oo aad u badan waxay u direen dhanka caasimadda Kiev waxaana ka mid ah taangiyo iyo sidoo kale dabaabaadka kale ee dagaalka magaalada Kharkivna waxaa ka dhacay dagaallo la isku adeegsaday hub aad u xoogan waxaana gantaal uu ku dhacay afaafka hore ee xarunta golaha deegaanka goordhowna wakaalada wararka ee Ruushka oo soo xiganaysa wasaaradda gaashaandhigga waxa ay sheegtay in maanta Arbaca ah ay ciidamada Ruushku ay la wareegeen magaalada Kherson koonfurta wadanka Ukraine magaaladan oo ah magaalo istiraatiiji ah isla markaana xoogga uu saarayay Ruushka ayaa u suura gashay ugu dambeyn inay gacanta ku dhigaan inkastoo dowladda Ukraine weli arrintan aanay ka hadlin qoraalka ka soo baxay wasaaradda waxaa lagu yiri ciidamadeenu waxay si awood ah kula wareegeen magaalada Kherson waxaana hadda ay ka wadaan gudaha magaalada howlgallo ballaaran dadka rayidka ah ee magaaladaasi ku sugan ha isdajiyaan wax dhiba kalama kulmi doontaan ciidamadayada ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Ruushka ciidamadii Ukraine ee halkaasi ku sugnaa ayaa awood ahaan laga xoog batay waxaana taas ay keentay inay ka baxaan magaalada iyadoo oo magaaladana lagu qaaday weerar cir iyo dhul haddii aynu eegno dhinaca waqooyi ee magaalada Kharkivna militariga Ukraine wuxuu sheegay in ciidamada ee dalaayadaha ku booda ay weerar ka geysteen halkaasi Ruushka ayaa mar qura diyaarado ka soo daadiyay ciidamo hubeysan kuwaas oo qaybo ka mid ah magaaladaasi dagaal xoogan ka wada waxaa jira warar sheegaya in gantaal lala beegsaday dhismaha saldhig boolis iyo jaamacad ku taala magaalada Kharkiv ugu yaraan 21 qof ayaa ku dhintay duqeynta halka 112 qofna ay ku dhaawacmeen Kharkiv waa caasimadda labaad ee Ukraine waxay 30 kilomitir u jirtaa xadka Ruushka waana magaalo ay u badan yihiin dadka ku hadla luqadda Ruushka waxaana Ruushka uu doonayaa magaaladan in uu saacadaha soo aadan gacanta ku dhigo isla markaana meesha uu ka saaro ciidamada Ukraine haddii magaaladaasi la qabtana waxay noqonaysaa magaalo kale weyn oo gacanta u gasha ciidamada Ruushka iyadoo dagaal xoogan uu ka soconayo falanqeeyaashuna waxay saadaalinayaan in ciidamada Ruushka laga yaabo in maantaba ay ka farxashaan magaaladaasi dhinaca kalena gawaarida gaashaaman ee Ruushka ayaa aad ugu siqaya waa kuwii gurmad ahaanta u yimid ee magaalada caasimadda ah ee Kiev waxaana la sheegayaa in hadda ay joogaan meel 25 meel u jirta caasimadda waxaana ay ku sugan yihiin dhanka waqooyiga waxaana la sheegayaa in ciidamadan ay diyaar u yihiin iyaguna inay soo galaan saacadaha soo aadan qaybaha kale ee magaalada mar haddii horeyba magaalada dhexdeeda dagaalo ay ku dhexdhaceen oo ciidamada Ruushka meelo ka mid ah magaaladaasi ay ku sugan yihiin gantaallada Ruushku waxaa lala beegsaday anteena telefishin talaadadii 5 qof ayaa ku dhimatay weerarkaasi halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen dhinaca kalena wakaalada wararka ee Ukraine waxa ay sheegtay in ciidamada cirka ee Ukraine inay ku guuleysteen inay burburiyaan kolonyo ciidan oo ay wateen dagaalyahanada calooshood u shaqaystayaasha oo isku dayay inay u soo dhaqaaqaan dhanka caasimadda duqeyntaasi kaalin weyn waxaa ka qaadatay bay yiraahdeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar TB2 wakaaladu waxay intaasi ku dartay in kolonyadani isku dayeen inay ka soo baxaan dhanka bari ee magaalada Berdyansk ee ku taal waqooyiga galbeed ee caasimadda Kiev maamulka Ukraine ayaa sheegay in 2 qof ay ku dhinteen 3 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo Ruushku ay u geysteen dhismayaal la degan yahay oo ku yaala magaaladaasi dagaalada waxay u muuqdaan hadda kuwa si toos ah uga wada soconaya dhammaan magaalooyinka waaweyn ee wadanka Ukraine
iyada oo qorshaha ugu weyn ee hadda ciidamada ruushku ay tahay inay gacanta ku dhigaan magaalada labaad ama caasimadda labaad ee waddanka Ukraine kadib markii magaalada cir iyo dhulba looga soo daadiyay ciidamo. waxaana magaaladaasi hadda laga dareemayaa jawi ka bedelan jawiyadii hore iyadoo duqeymaha sidoo kalena ay socdaan. waxa uu gantaalo ku dhaceen xarumo waaweyn oo dowladda iyo sidoo kale goobo ay ku sugnaayeen ciidamo militari ah halkaasoo waxyeeladii ugu badnaa ay ka dhalatay. dowladda ruushka ayaa sheegtay in dagaalkan kusoo afdheeraaday lasoo afjarayo iyadoo dhinaca kalena ay jiraan qorshayaal la doonayay in dhinacyadan ay ku wada hadlaan islamarkaana maanta uu sii bilowdo wejiga labaad ee wadahadalka ruushka iyo Ukraine. walow dowladda Ukraine ay sheegtay in iyadu marnaba aysan diyaar u ahayn in wadahadallada ay sii socdaan haddii marnaba aan xabadda la joojinayn. waxaana dowladda ruushka ay ka dalbatay inay xabad joojin ku dhawaaqdo si wadahadallada ay u noqdaan kuwa miro dhala. hase ahaatee ruushka ayaa gacanna ku weeraraya Ukraine gacanta kalena ugu baaqaya wadahadal, balse dadka odorosa arrimaha Ukraine waxa ay sheegayaan in dowladda Ukraine ay gadaal ka soo riixayaan dowladaha reer galbeedka oo u sheegaya inay ruushka ka diidaan inay wax wadahadal miro dhal ah la yeeshaan, taasoo dhibaato u ah reer Ukraine maadaama Ukraine hadda dhanka burburka ay u sii socoto. sidoo kalena waxaa jira gantaalada la adeegsanayo ama ruushku adeegsanayo inay yihiin gantaalo ka duwan kuwii hore uu adeegsanayay, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ruushku adeegsanayo gantaalo halis ah kuwaas oo markii ay ku soo dhacaan dhulka sameynaya in ay jiitaan oksijiinka kadibna waxaa ka dhalanaya qaraxyo waaweyn. waana gantaalo la sheegay in marka laga soo tago nuclearka ay yihiin kuwa ugu halista badan ee xilligan la isticmaalayo. Ukraine xaaladda ayaa aad uga adag. dagaalka maanta waxa uu yahay mid soconaya xilli walbana isbedelo ayaa la fili karaa oo dhanka dagaalka ah, waxaana la qabsanayaa magaalooyin waaweyn oo waddanka Ukraine ah iyadoo dowladda Ukraine dadaallo xoogan ay bixinayso. ciidamadeedu waxay isku dayayaan inay iska difaacaan ciidamada ruushka. hase ahaatee ruushka oo markii hore askar kooban dagaalka soo geliyey ayaa markan u muuqda in dhammaan askartiisa uu soo fasaxay, taas oo aanay ciidamada Ukraine u babacdhigi karin awood iyo tiro marka la yiraahdo. daawad aragtidaada fadlan qaybta hoose commentiga inoogu reeb. you